بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا مطبخ منى وولاشين منى maanta la qaybsanaysaa saliid rosemary hair oil la yiraahdo oo timaha bixinaysa igana qor insha Allah waa aad iyo aad bay fiican tahay dad badan bay anfacday rosemary cuntada lagu darsadaa anigu badan waxaan ku darsadaa shurbada waan aragtay channelkayga inaan shurbada ku daro iyada bay leaveska rosemary na iyadoo dried ah oo engegan oo caleen engejiye tahay ayaad heli kartaa timaha ay u fiican tahay korisaa blood circulation kay u fiican tahay dhiigga inay jirka saa u marmaro si fiican ayuu dhiig u dhaqaaqayaa tinta meesha ka soo baxdana scalpka ay u fiican tahay marka rosemary-da af Soomaali kuma garanay laakiin rosemary marka qortiin arki doontiin iyadoo dry ah engegan iyo iyadoo caleen heli kartaa imika malqacad baan soo qaaday waxaan ku darayaa saliidadna ta ku dari kartaa maanta anu zaytuun baan ku darayaa laakiin saliidihii badnay aynu tusin jiray coconut oil jojoba oil almond oil castor oil waxaas dhan ku dari kartaa tii kula fiicnaada muhiimaddu waxa weeye timaha markaad doonayso inay ku baxaan inaad lafta guntaas aad wax marisid ma aha dusha sare kaliya oo dusha sare dhalaad iyo qurux un saliidii baan soo karkariyay 10 minutes ah waa aragta kalarkiisu sida kasta olive oil ku kalarkiisu taas ka yahay waxayna inuu kula talinayaa rosemary-ga hadda heshiiyada caleenta asalka ah ina soo qaadatiin aniyadu engegan baan soo helay laakiin iyada asalkeedii ah oo bisil ma leeyahay hadda soo heshiin wanaagsan tahay waan shaandhaynayaa waan miirayaa saliida rosemary-gan ka miirayaa insha Allah waxaan ku shubanayaa marka dhalo muhiimadda saayni sheegay waa lafta timaha in la mariyo marka wax la marinayo dusha laga marinayo baalasha talabaadna inaad tabcan cuntadaadu fiican tahay haddaad cunto fast food cuntid macmacaan waxyaabaha nafaqaduna waxay u baahan tahay hoosta jirka hoostiisa inside-ka inay ka timaado maaha outside kaliya waxaan ku darayaa essential oilkan hore waad soo aragteen anu maanta waxaan ku darayaa tea tree na aad bay timaha ugu fiican tahay oo way bixisaa marka laba dhibcood baan ku darayaa essential oilka xasaasiyad baa laga qaadaa kaligood ma marsan kartid oo jirkaagana toos ma marin kartid dadka qaarkood bay xasaasiyad ku leeyihiin marka waa inaad ogaato tabcan waxaad ku leedahay waxaan isticmaalayaa dharadii caanka aan ku ahaa oo maalintii dhaweyd aloe vera ka dhamaatay maalintii dhaweyd aan ku sameynayay clove hair qorofalka sprayga tii baan isticmaalayaa mar labaad saliidda inaad ku seexatid wanaagsan inaad ku seexatid intaad lafta marisid timahaaga oo dhan lafta massage ku samaysid saas ayaa fiican inaad ku seexatid maalinta subaxdii iska meydhid marmarna uma baahnaad meydhid iskaga joogtaa laakiin ur yar adag bay leedahay rosemary-ga marka haddaa shaqo tegisid iskuul tegisid meel iskula imaanayaa tegisid dayna iska meydhid baa wanaagsan wiigii 2-3 jeer isku day lafta timaha meesha kasoo baxaan massagena samee 5 minutes 10 minutes insha Allah وإذنكا rosemary hair oil إن شاء الله see you next time subscribe like and share